waxaa shalay markaasi ciyaaray kooxaha waaweyn ee Hagen iyo sidoo kale Horseed waxayna ciyaareen tartanka Jiran Daawud ee kubadda kolayga. Shalay ayaa ciyaar aad u xiiso badan halkaasi ka dhacday iyagoo ay soo bandhigeen kooxaha ciyaar aad loo jecleystay. Tartanka Jiran Daawud ee kubadda kolayga ayaa maraya heerkiisii gabagabada ah oo labadan kooxood ay markaasi ahaayeen labada koox ee ka gudbayay dhamaadka afar dhamaadka ee tartankan u gudbay finaalaha, waxaana labada kooxba ay markaasi ciyaar aad u qurux badan ay soo dhigeen iyagoona shalay ay guusha ay ku raacday kooxda Hagen oo u soo baxday tartanka kama dambaysta ee markaa koobka Jiran Daawud ee kubadda kolayga, waxayna hiigsan doontaa finaalka waxayna la ciyaari doontaa naadiga Gift Star oo horey dekada ugu soo adkaatay. Maalinta Jimcaha ayaa kulankaasi la ciyaari doona, waana kulan aad u xiiso badan oo kooxahan ay ku hardami doonaan. Sidoo kale ciyaaryahan kamid ah kooxda Horseed ee lagu magacaabo Xasan Saalax ayaa shalay door muhiim ah ka qaatay kulan ciyaareedka ee kubadda kolayga Hagen iyo Horseed kulankii ciyaaray walow ciyaaryahankan ee dhaawac ee soo gaaray kaasoo ka dhaawacmay garabka. Laacibkan ayaa markaasi dhaawaca soo gaaray garoonka looga saaray waxaana ugu dambeyntii la geeyay mid kamid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho, isagoo halkaasina garabka uu ka baxay kala bax garab uu soo gaaray, waxaana durbadiiba ay dhaqaatiirtu sheegeen inuu dhaawiciisa ceento oo markaasi hadda xaaladiisu ay wanaagsan tahay. Saalax waxa uu ka mid ahaa ciyaaryahanadii ugu fiicnaa kulan ciyaareedkii shalay ee soo bandhigay isagoo oona door weyn ee ka qaatay walow kooxdiisa guuldara ee la kulantay. Dhanka kale xulka qaranka Soomaaliya ayaa tababarkooda bilaabay iyagoo isku diyaarinaya tartankan ee ciyaari doonaan markaasi sreereebka kuala finaalka ee koobka adduunka loogu bixi doono. Macallin Rashiid iyo ciyaartoydiisa ayaa diyaar garow markaasi ku jira iyagoo horeyna loo soo xulay ciyaartoydan ay wadeen tababarkooda. Hadda waa tababarkii ugu dambeeyay ee xil ciyaareedkan ay isku diyaarinayaan oo ah kulan aad u xiiso badan ay markaasi soo bandhigi doonaan marka la gaaro September oo ay ciyaari doonaan kulamada xulka qaranka Soomaaliya.